jacaylku waa wax dhib badan, qofba si ayuu u hayaa. Waxaa jira laba isla nool aan jacaylku isku fahmin, laba kala fog oo dhambaal hawada isku marsiiya, iyo laba isjecel oo midkood dunida lagu cidleeyay. Labada isla nool oo aan jacaylku isku fahmin ayaa midkood sidaan oranaya: anoo adi ku naawilay oo noole kuu jecel, niyad samiha joogtee nasteexad ka dhigataa, nabar aniga igaadhee adoo niyadda iga jaray, jacaylkana natiiqiyo naxli iyo xumaan baday, soo dooqa nacaskii rajo naawil ima oo dhan. Aan ku xijiyo labada kala fog oo dhambaal hawada isku marsiiya, laba dhoof ku kala maqan, midba dhinac ku nool yahay, isku qaba jacayl dhab ah, dhambaal la isku diray iyo dhiirigelin ku wada nool, dharaartay kulmayaan soo dhaweey allahayow. Labada isjecel oo midkood dunida lagu cidleeyay ayay ku saabsan tahay sheekadan aan idiin soo jeedin doono. ogobay jaleecada indhahaaga buuxshe, waa ubax jacaylkuna egmada qiyaasliyo, ma abaado ma ilaado lagamana adkayste, ma abaado ma ilaado lagamana adkayste, dadna ruuxa ku aaminayay iyo wacaad ilaahay, dadna ruuxa ku aaminayay iyo wacaad ilaahay, midna lama ilaawe, midna lama ilaawe, halayninaya, midna lama ilaawe, midna lama ilaawe, halayninaya. ahayd gabar ku nool magaalada Kismaayo, gaar ahaan xaafadda Canaley. Waxay ahayd gabar qurux badan, jecelna waxbarashada, aadna u furfuran. Walaalkeed oo jooga Sweden ayaa soo wacay waalidkii una sheegay Sacdiyo inay timaado Nairobi si uu uga kaxeeyo. Xasan oo ahaa Sacdiyo aabaheed ayaa u sheegay Sacdiyo inay dhawaan u anbabixi doonto dalka Kenya, kadibna kasii aadi doonto Sweden. Sacdiyo ayaa timid boostayjada laga soo anbabaxo ee ku taala wadada Somali Star ee xaafadda Canaley. Sacdiyo ayaa sidan ku bilowday sheekadeedii. Bishii 8 2008 waxay ahayd maalinta aan kasoo anbabaxayay magaalada Kismaayo anigoo usii kacitimayay magaalada Nairobi. Waxay ahayd markii iigu horeysay ee aan dalkayga hooyo dibadda uga baxayo. Waxaan dareemayay culeys kaasoo ahaa inaan ka tagayo qoyskayga iyo asxaabtayda. Waxaan nimid boostayjada, hooyaday Sahro aad iyo iigu ooysay. Ilinta ka socotay hooyaday Sahro waxay ahayd mid aan la ooyay, iyadoo ii raacisay: hooyo ilaaha ku nabadgeeyo, meel dadka dhexdooda ahna seexo. Goor ay tahay 5 galabnimo ayaan kasoo anbabaxnay magaalada Kismaayo, waxaana gaariga dhexdiisa isku baranay Liibaan oo ahaa wiil isagana u socday magaalada Nairobi. Liibaan aniga oo kale muusan ahayn, horey ayuu u tagay magaalada Nairobi. Liibaan wuxuu noqday wiilka kaliya ee aan gaariga iska dhex fahanay. Maalin ayaa gaariga nooga jabay tuulada Qooqaane. Intaan safarka kusii jirnay, naxariiso badan ayaan ka dareemay Liibaan, taasoo xaggiisa inta badan iisii jiidan jirtay. Habeen iyo maalin gaariga nooga halaysnaa Qooqaane, aniga iyo Liibaan sidii qof iyo hooskiisa ayaan isku daba soconay, anigoo inta badan ka wareysan jiray xaaladda Nairobi. Rakaabka aad ayay u daalnaayeen, dhaqso ayay seexdeen, balse aniga iyo Liibaan sheeko ayaan ku gaarnay 4tii habeennimo. Intaan safarka soo ahayn, aniga iyo Liibaan isku meel ayaan wax ku wada cunaynay, isku meel ayaan gaariga ka wada fadhiisanaynay. Taas iyadoo jirto, weli Liibaan xadgudub iguma uusan dayin. Kadib waxaan nimid Doobley, isla galabkiina waan kasoo anbabaxnay. Waxaan nimid xerada qaxootiga ee Xagardheer. Waxaan joognay maalin. Liibaan ayaa ina geeyay xaafadda uu lahaa adeerkiis. Subaxii dambe 8:15 subaxnimo ayaan kasoo baxnay Xagardheer, annagoo nimid Nairobi 6:15 ee fiidnimo. Aniga maanan garanayn. Waxaan wacay nambarka abtigay, waxaan u sheegay inaan nabad imid Nairobi, uuna igu yimaado boostaajada gawaarida laga raaco. Liibaan ayaa igu yiri: Sacdiyo, barashadeena safarka miyay ku koobneed? Aboowe, maya, barashadeena ma rabo inay halkaani ku ekaato. Nambarka abtigay qoro, waad iga heli kartaa. Habeenkii daal ba'an ayaa i hayay, waan iska seexday. Wixii ka dambeeyay waxaan had iyo jeer niyadda ku hayay Liibaan, anigoo iska xasuusan jiray hadalladiisa iyo quruxda eebbe siiyey. 3 maalin kadib, goor habeen ah, wuxuu Liibaan soo wacay nambarkii abti si uu ila hadlo. Habeenkii waxaan ka codsaday in uu ii yimaado, weliba si dhaqso ah. Liibaan igama uusan diideen, wuxuu iigu jawaabay: berrito ayaan ku
kuu imaanayaa waxaana isoo wadayo wiil walaalkay ah. niyadda ayaa ii degtay maadaama aan maqlay liibaan codkiisa iyo xaaladda uu ku sugan yahay. wixii intaa ka dambeeyey wuxuu qalbigayga ii sheegay inaan liibaan jeclahay. liibaan iyo wiil la socday jacaylkaagay hayo habeen urda kama seexde dharaartii mahadhgalo adaan kugu weelanahaye hubaad adigay hodo halbowlaha dhiiga qaadiyo halista wadnagay jare awaawigaadaay baday hugaygan ku moodaya arad baan ku qaba wadanka daawada hadiyaynaan salin amaynaan wada heshin naftaydana laynaya iyo wiil la socday ayaa yimaadeen maalintii dambe anigoo marmar dareemayay inaan aamusay oo aan liibaan ku maqanahay sida uu u sheekeynayay iyo bulshanimada ka muuqatay. waxaan ka qortay nambarkiisa banaanka gurigana uga soo haray. waxaan aftigay ka codsaday taleefonka wuxuuna iga aqbalay. habeenkii 8 fiidnimo ayaan wacay. aboobahaye xaaladaada ka waran? abbaaya fiican, adiga see tahay? markaan isweedaarsanay kadib ayaan liibaan ka codsaday inuu mar labaad ii yimaado maadaama uu isaga xaafadeeda yaqaano. aniga u raaciyay liibaan maalintaasi oo dhan anaad ila joogaysaa. maalintaasi gabar habaryartay dhashay ayaan ka codsaday inay iyadana ii timaado. waxaan rabay inay wiilka liibaan la imaan doono iga mashquuliso intaan liibaan la sheekaysanayo. maalin khamiis ah goor ay tahay 2 duhurnimo ayaa waxaa isoo wacay liibaan iina sheegay inuu xaafadda u soo dhow yahay. waxaan u soo dhaweeyey sida ugu fiican ee qof la jecel yahay loo soo dhaweeyo anigoo u diyaariyey qado iyo guri sheekada ku qurxoon. markuu yimid ayaan qado u geeyey isaga iyo wiilkii la socday. markay qadeeyeen oo ay nasteen ayaan xaawo u sheegay inay wiilka usii sheekayso. liibaan ayaan u bilaabay sheekada aan ka lahaa anigoo ugu bilaabay liibaan habeenadan fakarkaygu ugu batay. maxaa dhacay? jacayl miyaa ku galay abbaayo? liibaan marnaba ma uusan iska dhaadhicinin inaan aniga damac iga soo galayo oo wuxuu aad ugu tixgelinayay barashadeena ku xusneed walaaltanimada keliya. aboowe wadankan aan ku cusbahay waan ku cidlooday. taas iyadoo jirto ayaan arrin kale isii haysataa. waa maxay arrinta kale ee ku haysato abbaayo? aboowe wanaagaaga, sheekadaada, kaftankaaga ayaa isoo jiitay. inta badan adaan kaa fekera. liibaan wuu naxay, murugo ayaana wejigiisa soo fuushay. wuxuuna ku yiri abbaayo aniga ma rabo inaan ku qiyaano meeshaan. arrimo caafimaad ayaan u imid wayna igu adag tahay taas wax weyn ma ahan aboowe. abbaayo sacdiyo runtii waad istaahishaa nolol iyo jacayl in lagula qaybsado, balse ifaham. waxaan kala kulmay liibaan niyad jab aad u weyn. waxaana ka codsaday aboowe maadaama arrintan ku soo bandhigay aad adna iga gacan seertay ha goynin xiriirkeenii saaxiibtinimo. abbaayo taasi ma dhici doonto. waxaan ku ahaanayaa sidii hore kuugu ahaa. waxaan ii bilaabatay nolol adag, fakar iyo soo jeed ah. waxaan had iyo jeer ka fekeri jiray liibaan. cuntadii waanba ilaabay. jiifna waxay iila ahayd haddaan jiifsado inaan liibaan heli doonin. qolka ayaa waxaa iigu yimid afigay iyo xaaskiisa iguna dhaheen waxaa mardhow imaanaya walaalka, balse waxaasi iima cadeen oo liibaan oo keliya ayaa ii Yeah.
dhaaf isagoo ii sheekayn jiray igana qosol siin jiray xilliga uu ila joogo fakar ama murugo intaba maanan dareemi jirin. maalin maalmaha ka mid ah ayuu liibaan ii yimid waxaana u sheegay inaan dartiis qabri u dhowahay. liibaan oo ay ka muuqato murugo ayaa iigu jawaabay, abaayo maanta digtoorka ayaan u tegay wuxuuna igu yiri waxaad qabtaa kansarka beerka ku dhaca. wuxuuna ii sheegay liibaan cudurka hayay taasoo oo naxdin ba'an igu sii kordhisay. liibaan aan ugu bartay farxad ayaa maalintaasi ka arkayay indhihiisa oohin ka daadanayso, aniguna waan iscelin waayey. waan sasabay una sheegay adduunkan in lagu waari doonin uuna iska sabro ilaahayna baryo. waxaan dareemay inaan kasii daray sababtoo ah xanuunka hayay gacalyahayga. liibaan wuxuu ahaa mid aan marnaba ku niyad dhisayn. waxaan ka codsaday liibaan inuu gurigooda isoo baro si aan had iyo jeer ugu warhayo. waxaan u bandhigay liibaan inuu i guursado. liibaan aboowe waxaan go'aansaday inaan isguursano. sideed u aragtaa abaayo, miyaad waalatay? waad aragtaa xanuunka i hayo, adigana guur iyo waxaan loo joogin ayaad igu soo hadal qaadaysaa. liibaan waad iga dhab, waxaan rabaa inaan ciyaal aad adiga leedahay dhalo. taasi waa ii farxad, waalidkaana waa u farxad. abaayo adiga naftaada miyaad nacday? maxaad ka wadaa waxyaabahan dhan aad samaynaysid? aboowe jaceylka aan kuu qabo ayaa wax walbaba ka weyn. waxaa indhaha liibaan ilbiriqsi walba soo dhaafayay ilan, isagoo markii dambe hab i siiyey iguna jawaabay isagoo oynayo, abaayo bal fiiri, maanta waxaan haystaa jaceylka dunida ugu qaalisan balse caafimaad ma haysto. dulqaad iyo samar badan muuji. waxaan go'aan ku gaarnay inaan isguursano. liibaan familkooda ayuu u bandhigay wayna ka aqbaleen. waxaan aniga abtigay u sheegay inaan guursan rabo uuna wargeliyo hooyo iyo aabe. abti ayaa igu qayliyey iguna jawaabay, abti ma fiyowdahay? walaalka ayaa imaanaya, barnaamijkii aad u timid Nairobi ayuuna hirgelin rabaa. maya abti, maan waalan ee jaceylkayga dhulgaalo kuma bedelan karo. waxaa isoo wacay hooyo iyo aabe balse aniga kama aanan labayn go'aankii aan horey ugu gaaray mustaqbalkayga. abtigay oo aan gurigiisa joogay markuu arkay inaan madax adkeeyey igu yiri, waa kuma wiilka abti? abti waa liibaan, wiilkii aan isla soo safri jirnay. abti magaalada ayuu ka soo maqlay wiilka xanuunka hayo. habeenkii markuu guriga yimid ayuu yiri, abti wiilka inuu xanuunsan yahay iyo weliba cudur hayo ma og tahay? haa abti, waan ogahay inuu liibaan kansarka beerka qabo. abti wuu yaabay, gurigiisa ayuuna iska galay. liibaan waxaan maalin walba ugu tegi jiray gurigooda annagoo intaan wada joognay wax naga maqan aysan jirin. farxad galabkii ayaan gurigeena iska soo aadi jiray. farxadda jecel ee uu liibaan i tusay ma ahan mid aan iloobi doono weligay. waalidkiisa waxay go'aan ku gaareen bil kadib inaan isguursano. aniga iyo liibaan waxaan bilaabatay qabanqaabadii guurka. maalin ayuu guriga iigu yimid liibaan isagoo faraxsan. sheeko iyo kaftan ayaan iska galnay. wuxuu igu yiri, ma laga yaabaa inuu ilaah cudurkani iga qaado? haa aboowe, ilaah wax walba wuu awoodaa. waxaan markastoo aan tukado ilaah ka bari jiray inuu gacalyahayga ii daweeyo. waxaa liibaan aabihii uu soo maqlay inuu jiro wadaad tuulada Nairobi u dhow joogo, daweeyo cudurada, ku daweeyo dhirta. waxaa liibaan lagu wargeliyey isbuuca soo socda in loo wadi doono wadaadkaas. liibaan cudurka haya wuxuu ahaa mid aad iyo aad u xanuun badan balse wuxuu aaminsanaa jiifka inay u daran tahay cudurka. waxaa ii yimid liibaan oo ordaya. wuxuu ii sheegay wadaadka inuu aadi doono isbuuca soo socdo. annagoo sheekadii wadno ayaa salaadii casir la aqimay. liibaan wuxuu galay salaada. liibaan wuxuu ilaah mar walba ka bari jiray caafimaad. wuxuu waqtiga socdaba waxaa la gaaray maalintii uu liibaan bixi lahaa. liibaan wuxuu ii yimid goor fiid ah abaarihii 7 fiidnimo. wuxuuna igu wargeliyey inuu berito bixi doono. abaayo, berito waan baxaya, waxaan dareemi doonaa cidlo maadaama adiga kaa fogaanayo. aniga waxaan dareemay farxad iyo naxdin. dhinac waxaan iska tusay gacalyahayga oo ilaah idinkii ii soo caafimaadi doono. dhanka kale isagoo waxba laga soo qaban waayo taasoo liibaan ku keeni doonto niyad jab. habeenkii wuu i macsalaameeyey isagoo kaftamaya igu yiri, haddaan baxo fakar iyo cunto kasoon ha gelin, aniga waan kuu soo noqonayaa hadduu rabbi idmo. abaayo, guurkeena waa bil kadib. ilaah waxaan ka baryaa inuu wiil iga kaasiiyo. aniga hadalkii ayaa igu dhegay markaan arkay liibaan oo safar galaya. waxaana ku iri, waan kuu xiisi doonaa. subaxii dambe ayuu baxay. waxaana intuu sii maqnaa ilaah ugu baryey inuu caafimaad siiyo gacalyahayga. 4 saac kadib ayuu isoo wacay iina sheegay inuu gaaray goobtii wadaadka. 2 maalin kadib waxaa lasoo sheegay liibaan xaaladiisa inay ka soo dartay. waxaan isdhahay aad meesha liibaan joogo balse aniga maanan garanayn. habeenkii ayuu isoo wacay isagoo aad u xanuunsanayo. wuxuu igu yiri, waan fiicanahay, isagoo niyadda ii dhisayo balse runta waxay ahayd inuu aad u xanuunsanayay. sacdiyoy macaaney, aad ayaan kuugu xiisay xaggaaga inaan mardhow imaado ayaan rabaa.
aboowe aad ayaan kuugu xiisay. sidoo kale waxaan liibaan dareemay markuu ila hadlayay inay ilan ka socotay, anigana waan iscelin waayey. habeenkuu ila hadlayay subaxeedii 9 subaxnimo waxaa lasoo sheegay in uu dhintay liibaan. markaan maqlay dhimashada gacaliyaheyga sidaan dareemay ilaah unbaa garanayo. runtii ma ahan mid aan kasii faalayn karo. liibaan iyo aniga waxaan ahayn kuwo isku fahmay nolosha, marnaba ma dhicin inuu khilaafna soo dhex galo. wax dhammaystiran lama wada helo, sababtoo ah jacaylka liibaan iyo aniga dhan kastoo ka siman ayaan iscalfan waynay. waxaan ilaah ugu baryaa liibaan inuu jannada ka waraabiyo. waxaan ilaah ugu baryaa liibaan inuu jannada ka waraabiyo, markaan dhintana uu ilaah ila kulansiiyo. bil kadib walaalkay wuxuu ka yimid Sweden si uu ii wado, balse aniga go'aan waxaan ku gaaray inaan u laabto Kismaayo. waxaana i bedeshay walaashay. sidaas ayuuna walaalkay ku kaxeeyey walaashay. aniga naftayda sabirka yeelo waxaad sugayso la waayay, marnaba adigoo salugin wuxuu rabbigay saxiixay. naftayda sabirka yeelo waxaad sugayso la waayay, marnaba adigoo salugin wuxuu rabbigay saxiixay. kurbiya salfudaydii kaba ma aqso berriya saadaasha fiican, nasiibka seegimay iside sidaad rabto way ahaanee. samaantiyo talada qaado kurbiya salfudaydii kaba ma aqso berriya saadaasha fiican, nasiibka seegimay iside sidaad rabto way ahaanee. samaantiyo talada qaado sahwiga ruuxka daweeya, qalbiga saxariiri ka dhowra, kalsoonida ku siyadsha ayaa rabbigay ku siine. intaad sugto waayo guusha, sadka dhowro haquusan, sadka dhowro haquusan, sadka dhowro haquusan, sadka dhowro haquusan.
sadka dhowro haquusan sadka dhowro haquusan sadka dhowro haquusan sadka dhowro haquusan naftayda sartaquudo hurdada seexo hadiidin dadkan adigoon ka socmin cidlada saaxiibka yeelo naftayda sartaquudo hurdada seexo hadiidin dadkan adigoon ka socmin cidlada saaxiibka yeelo ku sadrigaagu raacay adaho awgii silcahaya hadda aan ku saacidaynin su'aalo badbaado eebe ilaah saaca bada u hoorso midku sadrigaagu raacay adaho awgii silcahaya hadda aan ku saacidaynin su'aalo badbaado eebe ilaah saaca bada u hoorso sahwiga ruuxka daweeya qalbiga saxariiri ka dhowra kalsoonida ku siyaadsha ayaa rabbigay ku siine intaad sugto waayo guusha sadka dhowro haquusan sadka dhowro haquusan sadka dhowro haquusan sadka dhowro haquusan intaas ayaan kusoo koobayaa sheekadii ama qisadii ku saabsaneyd sacdiya. haddii aad hayso qisadani mid lamid ah ama sheekooyin jecel noogu soo dir emailka dadirxusein videos@gmail.com ama facebooka